mid ka mid ah ardayadii walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanadaasi Ceelafin ayaa gabi ahaanba ku wareejiyay tiknikadii ay sida sharci darrada ugu haysteen deegaanadaasi Ceelafin ee colaaduhu ka socdeen. wareejinta gaadiidkan ayaa ku soo beegmaysa awaamir ka soo baxday xukuumadda Somaliland waxayna beeshan sheegtay inay taageersan tahay midnimada wada noolaanshaha dadka walaalaha taageersan tahayna amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee hubka dhigista waxayna ku baaqeen inay qaadanayaan nabadda uguna baaqeen beeshii colaadu ku dhex martay. kulankan lagu wareejinayay gaadiidka tiknikada ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, maamulka degmada Ceelafin, siyaasiyiin waxgarad, haldoorka ardaagan iyo mas'uuliyiin kale. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay cuqaash iyo waxgaradka siyaasiyiinta tiknikada wareejinayay. tan halkan la keenay ee aanu keenay hadaanu nahay bahay ama reerka bahal la yiraahdo baabuurta aanu keenay waa tikniko annaga lahayn kontrabisha baan ku iibsanay waxaanu iibsanay inaanu iskaga ilaalino cadawga Puntland ka imanaya. Somaliland uma iibsan, shicibkana uma iibsan. waxaanu iibsanay inaanu iskaga ilaalino cadawga naga imanaya dibadda. waa la wada garanayaa kaasaanu u biirsanay lacagaanu isku darsanay weeye nin ma lahayn meel xubay nagaga tiilay waxa weeyaan Somaliland hadday maanta nagaga dhigtay saddexda gaari ee aanu haysanay tiknikadana ma haysano saddexdii waa taa markii waxa kan tiknikadii anagu go'aan qadaar baanu qaadanay inaanu karno tiknikada wana laga hayaa waxaan kaloo halkan ka cadaynayaa barigii hore dawladii afweyne beeluhu ninba waxbuu ka helay wixii aanu anagu ka helay waanu dhiibnay waa kuwa maanta ciidanka Somaliland ay wataan beelaha kale ee walaalaha iyo qayb baa haysata hubkaa hore aanu anagu wareejinay kaa hore aanu anagu qaranka u wareejinay la siito waa la haystaa waxaanu ku cadaynaynaa inay weli beeshaan walaalana ay gacanta ku hayaan kii kuna mushaar qaataan waxaanu ku wareejinaynaa gaadiidkii loo tirinayay oo inay haystaan oo ay ku dagaalamayaan waanu soo wareejinay waa kuwa halkaa indhina ku aragtaan xoogna kama keenin amarka dawladdaanu ku keennay amarka dawladda ayaanu ku wareejinay sidaasaan ugu amar qaadanaynaa waxaanu sheegayaa walaalayagaan dirirta yarna dhex martay inaanu nabad ugu baaqayno diyaarna aanu nahay nabadgelyo cid kasta oo diyaar ah nabadgelyo diyaar nahay weli baanu ku baaqayno anagu oo aanu diyaar nahay waxa halkaa muhiimkiisu waxa weeyaan anagu hubkii xaggayaga loo tirinayay ee aanu haysanay wadda Somaliland baa lahayd Somaliland oo ku soo wareejinay waxaanu u codsanaynaa wixii go'aamada dawladdu ay soo jeedisay inay fulaan ayaanu codsanaynaa tiknikadan ama gaadiidkan meesha la keenay iyo wixii saaran Somaliland awal way ahaayeen gacanteedu bay ku jireen iminkana gacanta Somaliland baan ku soo wareejinay meel ma tagin aad iyo aad waxaan ugu qanacsanahay oo si raalinimo leh ku keenay mar haddii nalaga codsaday oo la yidhi soo xiraya oo haata wax kasta waa loo raacay dawladdu naga codsatay annagoo dawladdeeda ayidsan annagoo arrinka mar hore aan madaxweynaha la kulanayna arrimaha aanu ka wada hadalnay oo aan xusuusinayo madaxweynaha inaan hadalladii hore ku jireen annagu Somaliland wixii ay tiraahdo iyo wixii ay ku taliso iyo wixii ay nagu dhaqdo baan raali ku nahay maanta waxaan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa beesha Boho Faarax Biciide go'aanka geesinimada leh ee ay ka qaadatay inay soo dhiibtay hubkeedii tiknikada ahaa ay halkan u dhiibtay iyadoo u dhaqaaqay xaggii nabadda aad iyo aad baan beesha ugu mahadnaqayaa arrinta geesinimada leh si ay u soo afjaraan dagaalka mashruuca laga dhigtay ee muddada badan qaranka Somaliland ku ahaa dhiigbaxa ta kale waxaan leeyahay baaq nabadeed u dirayaa walaaladay beesha Sacad Yoonis inay hubka la mid ay haystaan ay soo dhiibaan oo xagga nabadda u dhaqaaqaan oo joojiyaan dagaalka waxaan kaloo aad iyo aad aan ula dardaarmayaa oo halkan fariin uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi inuu oofiyo ragga hubkoodii dhiibay
uu damaanad qaado ammaankooda hubkaa in badan baa beeluu haysteen lagama wareejin waxaan leenahay madaxweyne ballantaa aad qaadeen waa lagaa sugayaa inaad ammaanka beesha la midana hubka dhigis ku samayso waxaa iyaguna aan kolga mahadcelinayaa dadweynaha maanta halka ku sugan gaar ahaan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa odayaasha cubaasha iyo waxgaradka beesha boqood ee qaatay maanta iyagu inay hubkii ay haysteen ay iyagu gacanta ku hayeen maanta inay ku wareejiyaan ciidanka qaranka si ay uga mid noqdaan hantida ay dawladdu leedahay go'aankaas oo runtii ah go'aan geesinimo leh waqti adag iyo talo adag runtii ku yimi qancin badan ku yimi heerku ay dhammaan ka wada shaqeeyeen hadday tahay odaygoodii cuqaashoodii siyaasiyiintoodii xildhibaanadoodii iyo dhulajooggooduba sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceelafin iyo weliba balasaabkii hore gobolka Saraar aad iyo aad baan waa loo mahad celiyey beesha hawshan soo gashay dadaalkana soo samaysay waxaanu leenahay sida ay u ballan qaadeen ilaahay haynoo aqbalo nabadgelyada ay u ballan qaadeen hubkan ay soo wareejiyeen waxaynu rajaynaynaa dhammaanba gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafin beelaha jooganayana wixii hubay waaweyn ay qaranka ku wareejiyaan qodob waxa weeye beesha Baho Faarax oo aynu maanta u mahad celinayno ilaahay baa jasaayigeeda ka siinaya qarankuna waa idin ogaanaya dawladdiinuna waa ogtahay odayaashii hawshan wax kaga jiray ayaan ka mid ahaa wax ka galay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Faysal Cabdi Bootaan waa hawl muhiima xaflad ballaaran weeye beesha Bahood ee soo wareejisay hubka iyo qoryaha ay iyagu gacanta ku hayeen iyagu ay ibsadeen gacantooda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa khayr Allah idin siiyo cid kastaana waxa muhiim ah inay wanaag ka shaqeyso xukuumadda talada haysana hubka ay ku soo wareejisay beesha Bahood ee ay ka shaqeeyeen odayaashii ganacsatadii aqoon-yahankii madax dhaqameedkii iyo salaadiintii cid waliba ay arrintaa ka shaqeysay ilaa heer wasiirada ay ka shaqeeyeen beelweynta guud aad iyo aad beeshaasu siday hawsha uga hawl gashay ay beesha Bahoodna u wareejiyeen guud ahaan beelweynta ay ka soo jeedaan ay ula qabto xukuumadda iyo taliska ciidanka ee maanta halkan anigu aan taliyay ciidanka qaranka sareeyo gaasnuux Ismaaciil Taani aan wakiil ka ahay anaguna hubka waa idin kala wareegnay si qalbi furan baan idin kala wareegnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa samaysteen dadaal wanaagsan oo ku dayasho leh ومحمد سوتة تلفزيون قناة Somaliland Ceelafin